toddobaatan sagaalkii maraan taariikhda aan u filayo ayaan dagaal la galnay anagoo guutada 8aad ah ururka gamaadiid 11aad axmed teersoo kale allah u naxariisto waan hubaa ilaahay agtiisa u joogaa saraakiishii bartaasi buundada ku dhintay oo asaga xabad ugu horreysay ayuu ka mid ahaa wadaniyadda iyo moraalka siduu ahaa ciidanka xabad soo dhacsan laga biqin oo iyadoo qofka uusan maskaxdiisa doorsanayn uusan waxba cabin laakiin niyadiisu sarraysay inuu jabiyo cadowgaas markaa sidaasaan lagu jiiray lagu qabsaday gudi waxaa gacanta igu hayay 7 nin oo cadaan ah iyo 1 nin oo madow korneel ah oo isbitaalka Harar ninka haysta ah ilaa iyo xad ay koronto gaarto xad ay cidiyahaas iga saaraan waxaan ku jirnay xabsiga Harar oo xabsiyada ka mid ah xabsiyada ugu adkaa ee Harar ama Itoobiya dhan marka la yiraahdo xabsiga laba mid ah mooyaane oo muddo 7 sano ama 6 sano ku jirnay ciidanka tiradoodu waxaan malaynaa ilaa 300 iyo dheeraad inay ahayn hadda inkastoo fixedkii aan haynin ciidankaasi rag keliyana ma ahayn gabar Soomaaliyeed oo sharaf leh oo halgamaa ah oo aan ragga ka qiimo dhicin meel kastoo joogta hadday nooshahay ayada iyo ubadkeeda iyo dadka la joogta waa salaamaya waxaan ku jirnay silac iyo rafaad hadday tahay daawo ma aragno hadday tahay dhakhtar ma aragno hadday tahay dhar ma helno hadday tahay maxalada cunto wanaagsan ma helno toorjarka iyo dilkan waa joogta ilaa waxaan garanayaa boodahayga dhabtaydu ay ku dhinteen ilaa 5-6 sidii loo diliyey maskaxdii ku dhafta waxaa iigu daran waxaa iigu darnaa nin Axmed la yiraahdo nin cabdiweyne la yiraahdo saan u malaynayo labadaba nina dhabteedu ku go'ay asoo hadda rafaad dil qabay maskaxdana qafiifay sakaraadkii baa soo fuulay dhabteedu ayuu ku go'ay wuxuu leeyahay annaga waxaan leenahay war ashahaadadii baan u qabanaynaa isagana wuxuu leeyahay calankayga duuro haddaan soo noqno ilaahay ku dhowti hees wuxuu ku haysayaa wadanay ahaa calankayga nuuro haddaanan soo noqon ilaah ku dhowti